runtii waxaan aad u jeclahay inaan idinku mahad celiyo maanta imaashaheena waa maalin weyn maalin aad u weyn weeye waxaan u leeyahana waan idin qeexaya haddii alla idmo awalan fadhigan munaasabadan muhiimka ah waa mid marti sharaf aan idinku marti qaaday oo aad u jeclaa inaan idinku mahadnaqo idinkoo reetolkaya fadhi muwaafaqo leh midnimo leh tolnimo leh ehelnimo leh ayaan idinku yeeray 3 maalmood baad u fadhideen danta tolka 3 maalmood gabagaba haday noqotay waa inaan ku galbinaa salaan baaxad weyn inaad u gudbisaan tolkii aad ka soo tagteen idinkana amaan iyo magangelyo aan idinku duceeyo idinkana aad igu duceysaan yaan idinku yeeray awalan midda u horeyso midda labaad oon rabo inaan idin qeexo waa wanaagii iyo kalgacaylkii iyo midnimadii aad ku timaadeen inaan idin iftiimiyo wixii ka soo baxay 3 maalmood oon u joognay xalay wanaag ayuu inoogu dhamaaday shirka horta midda waa kow tol markuu isu imaado wuu hadlayaa hadalkaa wuu badan yahay meel walbo la joogaba adduunkan laakiin hadalkii waxaan ku soo koobayaa inoo socday 3 maalmood inuu qodobadii aan ugu imaanay oo taa darteed ahayd oo 4 ahaa in la wada ansixiyo 4tii mid la raacsiin rabay inaan dib u dhiganay waa inaan runtii isu sheegnaa waxaa jirtay midnimada maxamed subeer in la isugu imaado waa kan maxamed subeer wada yaallo soo midnimo kuma fadhino kuraastan aan fadhino maanta inta ka qayb gashay intan iyo in badan Soomaa oo safreen intii safartay dana degdeg oo haysay ku safreen ma ahane ku dhoofeen intii safri rabtay oo hadda laga bilaabo in yar baan qaadanaya waan idin ogolaanaya inaad soo dhooftaane dana badan baa idin sugaya ramadaanna waa lagu jiraa midnimadii maxamed subeer meesha ma laga muujiyay bal gacanta aan kor u qaadnay inaan isku hubno taa iyada inaan taa isku hubno taa iyada way dhacday soo ma ahayn mid qodobka labaadan isugu nimid waa inaan mucaarad noqon oon runtii muxaafid ahaano xagga dawladda waddanka sida ay maagan tahay eenu xisbigii aanu ku jirnay oo dana badan noo fuliyey dana badanna baaqi noo ah laakiin noo fuliyey dana badan oo muhiima oo la taaban karo soo sax ma aha qodobka 3aad wuxuu ahaa dad toleed oo meel fariisto oo odayaala oo xil loo dhiibay 8 sano xil waday qaarna ay oofiyeen qaarna ay ka gabi dhaceen xilka in laga wareejiyo ayay ahayd falillaahi alxamd xilkoodii ayagoon ku mahadnaqayna intay qabteen intay ka gabi dhaceenna aan ku cafinayno yaa waxaan niri waad mahadsantihiine wixii hadda laga bilaabo isku tashiga maxamed subeer ayaa ka weyn ta shakhsi oo casho dhaweyta lala yimid intaad qabateen waad ku mahadsantihiin intaa gabi dhacdeenna waad cafis baad ku tihiin soo sax ma aha hadday sidaa tahay maxamed subeer socdaal buu ku jiraa meel buu higsanayaa inuu iswada raaco
ولا بد إنه محمد سوير إسود الراعو ولا ممارمان سوساس ما سوسكم موافقين يدنا هدان انت قارني محمد سوير ودني هانو إيماننا ما أوفين مثلا ما أوفينين سومالي waxay tiri bahal higlo af qurmuuna wada joogi weyda kal gacaylna kala tagi weyday in yar kaliya in badan baan ku celceli maamahdaas ay gabdhaha leeyihiin waxaan u leeyahay waxa weeye isqa qabsiga iyo isjijiidka mar walba bulsho kasta waa laga helaa khaas noo ma aha laakiin wuxuu ilaahay nagu maneeyay kal gacaylkeena inuu ka ballaaran yahay inta aan ilma adeernimada isku gufanayno taana waa maamahdii ahayd ilma adeer iyo aaran geelba isuma turaana soo ma hayn waan isu turaynaa waan isu turnay ilma adeerna waan nahay isxamatay ama isxabaashay laakiin aniga si kale aan u dhahaa isxamatay oona isxabaashay سوساس ماها نينا ولالك ايهن ان ادرك مي حبالي لكن نينا ان ادرك ايهن ان ادرك يا امبا يحمنا يا هدنا عمر انت سقبت انت انا ما قبن عمر واسيدن او سيدن وي ولا سدهيا marka waanan isxamanay waanan isxabaali doonaa hadu ilaahay yiraahdo nin nasiib la walaalkii xabaala soosaas ma ahayn haddana nasiib laha walaalkii xamtaa waayo xantaada umba horta aad iska hagaajin kartaa si uu xasadkaaga ugu qoslin soo saas ma inta leeyahay xanta inaan iska hagaajiyaan raba 5 sano kale hadu Allah idmo hadal hadii la iidaayay waxaan higsanayaa mid tolkayga qaaliga ah oo aad u jeclahay qoys hoose 5 sano hore uma aanan degin qoys hoose uma aan daadegin maxamed suweernimo iyo inta ka sareyso oo abtira baan higsanayoon arkayoon u dadaalay maxamed suweernimo kelina waxba kuma qabanaynin inta muslimiinta ku nool ogaadeen iyo inta kale oo la degan iyo inta mas'uuliyadda la iigu dhiibay yaan tolnimo gacantayda ugu fidinayay iskuma koobin qoys iyo qabiil laakiin fadhigan munaasabadan qoys iyo qabiil baa iska leh sidaa darteed ayaan magaca maxamed suweer ugu celcelinaya aniga oonan dafiraynin diidaynin tol kale jiritaankiisa haddaan mas-uulahay inaan qayaxo taa iyada waa muhiim iyadana haddii 4 xubnood oo ugu waaweyneyd maxamed suweer uu shalay ugu dambeysay ku heshiiyey maxaa baaqi noo noqday oon ku fikirnaa in aan wax ka qabanno gadaashan waxaa baaqi noo noqday arrimaha siyaasadeed waa silsilad socoto waqti koobanna leh waqti la isma siinin taariikhda 9 saacad kasta saacadda ka xigto ayay sii guuraysaa oo waqtiga sii dhawaan xalay iyo saaka xilligii waan ku sii dhawaan haynaa doorashada hadday silsilad noqotay waqtiga hadduu silsilad noqday maxaa noo yaalaa dadaal iyo waqtigoon ilaalino iyo oon dibdhicin saan ku dibdhacaynin waxaa noo hartsanayd guddigii maxamed suweer soo shaqeeyay oo niri waanan cafinay waanan la jebiyey intay saxeenna way ku mahadsan yihiin intay hallayeenna waan ku cafinay yaa waxaa la go'aansaday guddi kale in la bilaabo maadaama ramadaan ay tahay maadaama la doonayo in la turxaan bixiyo soo saarista guddiga iyo isku hagaajintiisii in ramadaan aan dib ugu reexano aragti walba ani waan yeelan karayaa idinkana waad yeelan kartaan
laakiin way fududahay dadkeenna gediga waxaan leeyahay waad isku xirantiin hawshiinana waad dhamayn kartaan sida ugu dhaqsaha badan na soo akhbaarsiya sida ugu dhaqsaha badan guddigiina soo hagaajista na siiya maanta waxaan ku hadlayaa magacayga iyo mansabkan tolka ka taaganahay xilka aan u hayo tolka ushii aad ii dhibteen anoo weli u hayo oo u wado oon amarna ku bixin karo oon adeegana ku ahay labadaba ninka adeegaha waa nin la amro idinka ay amri kartaan ninka mas'uulka hayana amar buu bixin karaa amar iyo adeegaba haddaan ahay nin amar leeya nin adeegaba haddaan ahay oon labadiba garabka aan saaranayo taladan bixinaya waxaa weeye sida ugu dhaqsaha badan guddigaa ku abaabusha cid kaloo idiin imanayo idiin abaabuli ma laha waayo danaha idinkaa iska leh kama sugaayo nin inuu idin magacaabo idinkaan doonayana is magacaabudaan tuulo kasta tol baa jooga iska soo hagaajiya taa markay noqoto qoys iyo qabiil haddaad damacdaan inaad wax u qaybsataanna ikhtiyaar baad u leediin miyaan xorriyadda idinka qaaday markaa miyaan idin xakameeyey anoo mas-uulkii ah idinla hadlayaa mas-uul siyaasadeed weeye guddigan waxa loo baxsanayo siyaasad weeye waxa guddigan loo baxsanayo mas-uulkii siyaasadeed ayaa idin faray intaa nin amar bixin iyo nin adeega ah labadaba ah hadday intaa noqotay reer Kenya sidoo kale ayagan reer Wajeer sidoo kale waa miya Wajeer wey nolol iyo ganacsi baad meel kasta dunida u tagteen sidaa darteed waxaan idinka rajaynayaa kuwa Wajeer iyo kuwiina waama intaba inaad sidaa isu hagaajisaan aad isu soo diyaar garaysaan uguna dhaqsaha badan waqti muayina waan tilmaami doonaa hadduu eebba yidhaahdo waxaan idin sheegayaa maadaama aad kalgacayl ii muujiseen ood rabtaan inaan hawshan idiin sii wado layli ka soo baxaye hayin baan galay waa tii ahayd hayinkaba layli buu soo ahaa 5 sano oo hawl aan bilaabay oon hadda hayin ku noqday ninka odayga ahaa sheegaya gurada ayaa la saaraa ilmaha markuu hayin noqdo awrkii ilmahaad ku aamintaa tigay buu ahaa haddaad igu aaminteen hawshan 5 kale inaan idin qabto waan idin qabanayaa aniga naftayda iyo noloshayda iyo xoogayga iyo maalkayga iyo cibaadadayda iyo cabsida ilaahay idin huraya insha Allah ta'ala inaan idinku qabto macnaha aan ka wado cibaadiya cabsi ilaahay baan wax idinku qabaa baan ka wada yaan idinku qabanaya ano inta wada dhowrayo waxaan higsanayaa intaad higsanaysaan nolol baad higsanaysaan waan idin rabaa waxaad higsanaysaan mustaqbal ubadkiina kale ay dhalaan ubadkiina ay sii dhalaan in aan wax ku owla oga tagno waxaan idin leeyahay doorashada waanu u taaganahay annagoo xisbi muxaafida goolka waan isla wada dhalinaynaa go'aamadii noo soo baxay ay ahaayeen waad ku maasantihiin maxamed suwerow waxaan idin sheegayaa dhib badan oo na soo gaaray oo xagga ama shuruucda waddanka ha noqoto baasaboorra ha noqoto dadku rafaadsan oo xanuun u bixi rabay iyo xaj iyo howla kibanda lagu helaa kibandadii oo la isku ciriirin jiray mar walbo xor in la noqday xaqiiqdi weey xor inaan noqonay xaqiiqdi weey ana iskama dafiraya taan qabtay laakiin midda aan ku dagaalamayo sheegayo cidi ka daahsanayd in hawsha ay muhiim tahay maanta way arkayaan
kibaandhayaashii shuruucdii faraqaxooti noqota danihii tolka muhiimka ahaa oo loo diidayo iyagoo dhalatuu ah oo Kenyaan ah oo u baahnaa inay shuruucdooda helaan wiilashii iskoolada iyo meel walba aadi lahaa maanta waadix weeye inuu tolkii u helay nin wax raadsanaya soo ordaya meel fulaan waxba lagama qaban meel baa wax ka gaasira meel baa kan ka ah ingiriiska wuxuu ku maamaahaa ninka aqoonyahan hadduu yahay hadduusan ahaynba ha ogaada haddana aqoonyahan baa iskugu tilmaamaan ingiriiska wuxuu dhahaa Rome was not built in a day waddanka Roma la yiraahdo Roma la oran jiray waaga Talyaaniga magaalo madaxdeeda hal maalin laguma dhisin ma hal maalin baa lagu dhisay waa iyada ugu qarni dheer civilizationka dhulka uu ka bilaabmay waa yacna dunida casriga ah meesha ay ka bilaabatay hadday sidaa too maalin lagu dhisin war meel walba ma biyaan gelin karnaa isbitaal baan u dhisi karnaa iskool baan u dhisinaa 5 sano oo xisaabsanayd oo kadeedan ku ah lugta la haystay luqunta liiga marnaa halka internet sugaysa waad ogtiin xuduud in la qaybiyaa la rabaa oo xildhibaan ziyaada ama MP ziyaada la helo MP ziyaada lama helayo hadda meeshii mudnayd aan wada marin tolo waxaan rabaa aan ku celcelinayaa hal meel isugu badnaada saasay ooda wada jirbay gacmo wada jirbay wax ku gooyaane gacmaheena aan hal meel u gudbino oo kuuraha ugu ridno dardaarankayga waa inahaas aad baad ugu mahadsantiin imaashahan ma yareysanayo tolow ogaada tolow ogaada ma yareysanayo waan idinku celin oo qalbigayga aniga oo ka soo saarayo ma yareysanayo kulankan aan kulannay 3 maalmood oo ku soo naydeen haraad iyo guryihiina oodan joogin iyo danihiina ka soo tagteen ani innaba ma yareysanayo guul weynna way noo tahay anna way ii tahay tol wada yaallo oo wada hadlay oo xilli aad u fiican ku wada hadlay in intii ugu badnayd 95 boqolkiiba lagu gaaray waa inta haddaan isku waafaqnay soo nabad kagama soo tegin hawshiyadahay taaway marka inta noo dhiman on ka harnay way noo dhiman tahay ma ogiye kama tegin laguma coloobin intaana dib baan u dhiganay si aan meel ugu gaarno guddiga waxaan rabaa gabdhaha in lagu daro waa laf dhabarka qoyska waad kala garan kartaan nin hoyigiisa reer buuxa ah iyo nin hoyigiisa nusqaana gabdhaha way ku timaadaa gabadha aan gurigeeda oday ku soo hoyan iyo ta gurigeeda oday ku soo hoyda way kala yihiin odayna aan guri uu ku hoyda lahayn oo reer u joogo iyo midka kale way kala yihiin hadday sidaa noqotay waxaan doonayaa hablaha gabdhaheena in lagu daro guddiga ayaga ay ka mid noqdaan ayaga siyaasadda dhiraandhiriya oo si fiican u sii qaada hadalkayga waa midnimo waa tolnimo waa walaalnimo waa ehelnimo waa kalgacayl oonu dadka kale oo jaarka on la joogno ayagana aan walaalnimo u fidinayno laakiin teena siyaasadeedna aan ka wadanayno hal meela hal iskugu shubo hal meela dardaarankayga waka intaad ka soo tagtaanna u sheega hal meela hal iskugu shubo